wafdi uu hogaaminayo afhayeenka komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Siciid Cali Muuse oo ay wehelinayaan xubno kamida gudida komishanka qaranka Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag. Afhayeenka iyo wafdigiisa waxa galbeedka magaalada Ceergaabe ku soo dhaweeyay gudoomiyaha komishanka gobolka Sanaag iyo gudoomiyaha komishanka ee degmada Ceergaabe iyo sidoo kale qaar kamida shaqaalaha komishanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag. ugu horeyna gudoomiyaha komishanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Axmed Cali Biixi oo wafdiga halkaasi ku soo dhaweeyay ayaa goobtaasi ka hadlay. waxaa la soo gaaray guddiga doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta loogu yimid gobolka Sanaag. waxa ay dirdirgelinayaan waa hawlihii diiwaangelinta. aad baan ugu faraxsanahay inay noo yimaadeen reer Sanaagna waxaan ku rajaynaynaa inay si fiican noola soo dhaweeyaan. afhayeenka komishanka qaranka Soomaaliland Siciid Cali Muuse oo halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa sharaxay ujeedada safarka ay ku yimaadeen magaalada Ceergaabe. waxaan nahay 3 komishanar iyo hawlwaladeennadii komishanka qaarkood ku jiraan qolada shaqaalaha ama HR-ka iyo operationka. hawsha aanu ugu socono gobolka Unimi waxa weeye sidii aanu u diyaarin lahayn diiwaangelinta oo gobolkan ka bilaaban doonta haddii ay baydmo bisha July awalkeeda. waxaanu sii sameeynaynaa imika waxa weeye waa gogol dhig. waxaanu diyaarinaynaa habkii ay shaqadu hadhowtu u hirgeli lahayd. wax allaale wixii looga baahnaa oo dhan ayaanu imika diyaarinaynaa. gobolka Sanaag sida ogtihiin waa gobolka ugu baaxadda weyn gobolada 6 degmo ka kooban yahay. hawshiisa ma yara. waxaanu doonaynaa markaasi in ay noqoto hawshaasi mid si wanaagsan inoo ku fusha. waana tan aanu hadda socdaalka iyagu aasaaska u ah. waanu doonaynaa wax kasta gogol xaalkeedii iyo wixii looga baahnaa inaanu imika aanu sii diyaarino. ujeedada safarka iyaga ee gobolka Sanaag waanu muddo joogi doono. shaqaale badan iyo tababarayaalna iyaguna ay naga dambeeyaan oo iman doonaan. sidaa weeye waxaanu rajaynaynaa madaxda gobolka iyo odayaasha iyo komishanka gobolka iyo kuwa degmooyinka waan la kulmaynaa. hawsal la sheegay gobolka waa safayga ama indhayntii ugu horeysay iyo diyaarintii. aad baan ugu faraxsanahay runtii soo dhaweyntan qiimaha leh ay sameeyeen gobolku. waxaanu joogi doonaa muddo fiican oo badan. aad baynu kala dhargi doonaa. waxa la leeyahay wixii muhiim ah inay diiwaangelin bilaa goob laga qabtana diyaarinteedii imikuun baa insha Allah binaa kareem la qaban doonaa. intaasi kadibna waxa wafdidan ka socday komishanka qaranka Soomaaliland loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceergaabe halkaasi oo ay maalmo ku sugnaan doonaan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, telefishinka caalamiga Star, magaalada Ceergaabe.